guud ahaan dhammaan dhinacaanta oo dhan waxay ka kooban yihiin minerals kala duwan iyada oo aynu ku dhifaan karayn karno ama aynu ku qeexi karno in ay macdanta tahay mid si dabiici ah u samaysantay ran kara guud ahaan qaabka ay iyagu isugu urureen ay ku samaysmeen ama qaabka atomisku ay iyagu u samaysmeen isku dhiseen sidaa darteed ayaa waxaynu oran karnaa nooca macdanta ee aynu ka heli karno magma gaara sidaynu magmada usoo sharaxnay waxa weeyaan waa dareeraha fulkaaniga ka yimaada waxay ku xidhan tahay compositionka ama isku dhafka ay kimika ahaan ka kooban tahay magmadaasi iyo kulka ama temperatureka iyo cadaadiska ay magmadaasi heshay waktigii ay qaboobaysay taa macnaheedu oo ah sayska ama xajmiga quraarada ee laga heli karo hal macdani waxay ku xidhan tahay sida ay culays ahaan ama dhaqso ahaan ay u qabowday magmadu marka haddii ay magmadaasi ay time yar ama wakti yar oo kale markii ay dareeraha ahayd ay ku qabowday atomiska ay ka koobnaanayso iyada ayaa guud ahaan isku habaynaysa inay noqoto mid la arki karo oo waaweyn macni quraarada waqti qaadanay taa macnaheedu waxa weeyaan dhulka hoose magmada ku samaysantay ee ku qabowda kristalka ama quraarada ay samaysaa way ka weyn tahay tan dibadda timaada ee samaysanta waana awood rabbaaniya oo de ilaahay ugu talagalay inay sidaasi ay waxay u dhacaan مثلا tusaale ahaan kale obsidianka dhagaxa la yiraahdo oo volcanic igneous rock kamida qaybtaasi sideen hore soo sheegnay waxa uu leeyahay chemical composition ka yar kuwa kale obsidian isaga laftiisii una ilaakiise ku qaboobay xagga hoose dhulka hoose hoostiisa ku qaboobay obsidiankaas markuu kor soo baxo waana isla hal shay kor markuu soo baxo waqti ma qaadanayo atomkii quraarada uu ku sameeyo laakiin markuu dhulka hoose ku qaboobo waqti buu qaadanaya quraarad ahaan oo la arki karo oo soo saari karo marka qaybtaasi waa guud ahaan sharaxaynu ka bixinano gaar bayna hadaba u gelgeli doonaa saddexdii dhagax ee aynu hore usoo sheegnay ahaa kan originalka ee ilaahay subxana wa tacaala uu ka sameeyey marka horeba dhulka uu ka sameeyey qaybta layerka dhulka badda ka soo baxday originalkeedii badda ka soo baxday dhulka uu ka samaysan yahay bini'aadanku degan yahay xayawaanku degan yahay asalkiisa hore igneous aynu niri dabeedna waxaan ku xisiin doonaa fundamentalka oo isaguna kii labaad ee laqabaydiisa saarmaya noocyada macdanta laga helo iyo metamorphic oo qaybtii metabolismka aynu hore usoo sharaxnay iyadana ayaynu macdanta dee laga heli karo aynu sheegi doonaa inagoo ku beys gareynana haddii la yidhaha ama aasaas uga dhigana dhulkeenna somaliland sidii ummaddu ay u fahmi lahayd ay iskaga ilaalin lahayd waxyaalihii sunta ahaa ee waxyaalihii kiimikada ahaa dhagaxaanta ahaa ay iskaga ilaalin lahaayeen una fahmi lahaayeen shayga keliya ee qiimaha leh ay qaadan karayaan iyo qaabka ay u qaadanayeen haddii la yidhaha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu